maanta bal waxaan ka hadli doonaa shirkii labaad ee Africa ee Climate Summit oo lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee Ethiopia 8 ilaa 10 September 2025 ayaa ku soo gabagabay heshiis muhiim ah la isla qaatay kaas oo loogu magac daray Addis Ababa Declaration. Heshiiskan wuxuu muujinayaa go'aanka hogaamiyaasha Afrika ee ku aadan in qaaraddu noqoto hogaamiyaal caalami ah oo ku saabsan xalalka isbeddelka cimilada. Qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskan waxaa ka mid ah heshiiska koowaad, qodobka koowaad, hogaanka Afrika ee xalalka cimilada. Afrika ma aha oo keliya dhibanaha isbeddelka cimilada, balse waa isha xalalka. Waxaa la ballan qaaday in la hormariyo xalalka Afrika laga hirgeliyo sida tamarta la cusboonaysiin karo, beeraha waara iyo ilaalinta deegaanka. Qodobka labaad waxa uu ahaa mabda'a cadaaladda cimilada. Dalalka horumaray waa in ay dhiirigeliyaan inay buuxiyaan ballanqaadyadooda maalgelinta ee isbeddelka cimilada Afrika si loo yareeyo isbeddelka cimilada ee khasaaraha u geysanayo. Qodobka saddexaad waxa uu ahaa horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo. Waxa la maalgelin doonaa mashaariicda tamarta qoraxda iyo dabaysha iyada oo la doonayo in Afrika laga dhigo xarun caalami ah oo tamarta la cusboonaysiin karo. Qodobka afraad waxa uu ahaa maalgelinta iyo maareynta cimilada. Qorshe ayaa la soo bandhigay lagu ururinayo 50 bilyan sanadkii si loo gaaro xalalka isbeddelka cimilada. Waxa kale oo la ballan qaaday in la abuuro 1,000 xalal cimilada ah oo laga hirgelinayo Afrika ilaa 2030. Qodobka shanaad waxa uu ahaa iskaashiga caalamiga ah. Iskaashiga Afrika iyo ururada caalamiga ah sida Midowga Yurub iyo Bangiga Horumarinta Afrika ayaa la xoojiyay si loo gaaro yoolalka isbeddelka cimilada. Haddaba maadaama Soomaaliya shirkaana ka qayb ahayd, Soomaaliyana ay ka mid tahay dalalka ugu nugul isbeddelka cimilada, waxa ay ka faa'iideysan kartaa heshiiskan iyadoo la maalgelinayo mashaariicda tamarta la cusboonaysiin karo, beeraha waara iyo ka hortagga fatahaadaha iyo abaaraha. Sidoo kale Soomaaliya waxa ay qayb ka qaadan kartaa hirgelinta xalalka Afrika laga hirgelinayo ee ku saabsan isbeddelka cimilada. Hogaamiyaasha Afrika waxa ay ku dhawaaqeen qorshe ay kaga qayb qaadanayaan shirweynaha COP30 lagu qaban doono Brazil 10 ilaa 21 November 2025 iyaga oo doonaya inay halkaa ku soo bandhigaan mowqif midaysan oo ku aadan isbeddelka cimilada. Runtii marka la soo koobo shirkaas wuxuu muhiim u ahaa 2025 la qabtay in bal la ogaado Afrika siday dhibana ugu tahay isbeddelka cimilada. Sanadkan uu yahay sanadkii ugu cuslaa ee lagu baraarugo isbeddelka cimilada.